السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب maanta xafladan aadan ugu faraxsanahay runtii ujeedadeeduna waxay tahay in aan soo dhaweyno walaalkeen agaasimo Sharmaarke Maxamed Warsame oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dib noogu soo celiyay asiga oo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda. Ilaahay san u mahad celinayna subxaanahu wa ta'ala runtii Soomaalidu waxay dhahaan macnaha alla dilaa dhinta waa war weyn macnaha warkaas war caqiido ku salaysan waaye waa war diin ku salaysan qofan alla dilin ma dhimanayso ilaahayna qof kasta waqti uu yeelay oo uusan kana hormaraynin kana dib dhacaynin qof kasto isku daydana inay waqtigaas qofka hormarisane ma awoodi karto qof kasto jacayl dartiisa inay uga dib dhigta rabtane ma awoodo marka runtii ilaahay aa mahad iskale alxamdulillah marka waa farxad ay noo tahay maanta runtii mahadda ilaahay kadibne hadee man lam yashkur innaas lam yashkur illah waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda dhammaan shaqaalaheeda iyo madaxdeeda iyo agaasimayaasheeda iyo kulli waxaan u mahad celinaynaa dadaalkii wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo agaasimaha guud ay geliyeen oo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha laftiisa iyo dadaalkii lagu bixiyay iyo sidoo ra'iisul wasaaruhu ula fahmay oo isla markiiba uga falceliyay oo u jawaabiyay iyo ehelkii iyo qaraabadii xildhibaanadii ay ugu horeeyaan mahad salaad iyo xildhibaan saabir iyo qoyskii meesha markuu joogay bacda xamdillah runtii ilaahay mahadiisa kadib qarash aad u fara badan ku baxay caafimaadka ilaaha bixiyay laakiin dadaalkii xoolo badan waxa geliyay ehelkii iyo qaraabadii iyo dawladda looma kala harin marka dhammaan inta ka qayb qaadatay waa uga mahad celinaynaa ilaaha mahadaas iskale annagana waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa si gaar ah inuu asoo lafihiisi ay noo fiican yihiin oo libisan oo qurxan oo socda inuu ilaahay dib noogu soo celiyo